بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلا تيسير من كل عسير فإن ذلك على الله يسير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. باب التساعي هذا مبحثه وموضعه. halkan waxaan ka guda geli doonaa hadduu alla idmo darsigeenii 17aad ee kitaabkii al-isticdaad liyowmi almacaad. waxaa horey noogu soo dhammaaday baabkii thumaaniga ahaa, halkaana baabkii sagaalka xigmadood ka koobnaa ayaan ka guda geli doonaa. baabkan wuxuu koobaa 5 mawcido ayuu koobaa. hal ka mida waa xadiid nebi sala allahu calayhi wasalam, inta soo hartayna waa akhbaar wey laga soo guuriyo asxaabta salafu saalix. qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam, nabigeenna wuxuu yidhi: awxa allaahu, wuxuu ilaahay u waxyooday tacaalaa sarreeye, ilaa muusaa binu cimraan fi tawraah. muusa binu cimraan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u waxyooday fi tawraati, kitaabkii towraada dhexdiisa wuxuu ugu waxyooday: inna ummahaati alkhataayaa, gafaf iyo khaladaad asalkooda iyo hooyooyinkood 3 weeye. hiya 3daasna alkibru kibir weeye, walxasadu xasidnimo, iyo walxirsu dadaal. fa nasha'a waxaa ka dhasha minhaa 3daas xaggeeda 6 fasirna waxay ahaanayaan, haddii 3 hadday 6 ka dhalato waan gartay 9 ayay noqonayaan. al-uulaa midda koobaad oo min as-6 6 ah, 6 midda koobaad ashabacu dharag wey, wannawmu hurdo wey, warraaxatu raaxo wey, waxubbulmaali maal jacayl, iyo wa xubbu thanaa'i walmaxmadati ammaan jacayl iyo mahadnaqid. qofka maxayhayde wax walba u geystaba in looga mahadnaqo inuu iska jeclaado, iyo wa xubbu riyaasati madaxnimo jacayl. ashabacu dhereg, wannawmu hurdo, warraaxatu raaxo, wa xubbu lamwaali maal jacayl, wa xubbu thanaa'i wa xubbu lmaali maal jacayl, wa xubbu thanaa'i amaan jacayl, walmaxmadati iyo mahadnaqid uu qofkii iska jeclaado, iyo wa xubbu riyaasati madaxnimo jacayl. wa qaala cumar wuxuu yidhi, wa qaala abubakrin isidiiq dheh, abubakrin isidiiq wuxuu yidhi radia allaahu canhu, allah ka raal noqdee: alcibaadu addoommaha iyo kuwa ilaahay caabuda 3 asnaafin 3 sinfi iyo 3 nooc. likulli sinfi kastana 3 calaamaatin 3 calaamo ayuu iska leeyahay. calaamadahaasoo yucrafuuna lagu yaqaano biha, yacni 3da. wasinfun sinfi yacbuduuna allaha, ilaahay ayay caabudaan, calaa sabiili alxubbi, jacayl waddadaas dusheeday ku caabudaan. ilaahay jacayl ay u qabaan ayay ilaahay subxaanahu watacaala ku caabudaan. falil awali, midka koobaad oo yacnii sinfigaas koobaad uu iska leeyahay 3 calaamaatin 3 calaamo waa: yastaxqiru nafsahu, naftiisa wuu xaqiraa, wayastaqilu xasanaatihi, xasanaadkiisana waa u yaraystaa, wayastakhiru sayi'aatihi, gafafyaalkiisa iyo dembiyadiisuu badsadaa. walithaani, midka labaad calaa sabiili rajaa, alla maxayde rajayn uu rajaynayo waddadeeda ku caabudo 3 calaamaatin 3 calaamo ayuu iska leeyahay. yakuunu wuxuu ahaan
qudwata annaasi mid ay dadka ku daydaan fii jamiici alxaalaati xaaladihiisoo dhan, yacni mid tusaale ah oo wax wanaagsan oo looga dayda ay ka muuqdaan wey. wayakuunu wuxuu noqon askha annaasi midka dadka ugu deeqsisan, ugu wax bixinta badan, ugu wax quuridda badan, kullihim dhammaantood, bilmaali xagga maalka, zaahidan mid ka zaahido oo yacni ka taga waayo fi dunya adduunyadu ku dhex zaahidaa. wayakuunu wuxuu noqon xasana adanni billaah malaha ilaahay uu oga qabo fi lkhalqi kullihim makhluuqoo idil malaha ilaahay subxaanahu watacaala uu oga qabo waa mid uu maxayde wanaagsan yahay. walithaalithi midka saddexaad oo waa kee midkaas asiga ah, waa midka ilaahay ku caabudaya calaa sabiili alxub, jacaylka waddadiisa ku caabudaye. midkaas isaga ah halaathu calaamaatin, saddex calaamo ayuu iska leeyahay. yucdi wuxuu bixiyaa maa yuxibuhu waxa uu jecel yahay, walaa yubaali uma aabayeelayo bacda an yurdii rabbuhu rabbigii markuu raali geliyo kadib wax uu aabayeelaya malaha. ilaahayba mar hadduu yacni maxay ahayday amarkiisa uu guto oo ilaahay uu raali geliyo, waxyaabahan kale adduunyada ah umaba aabayeelaya, dhib weynna kuma haysa agtiisa, waxaa weye culays kama ah. wayacmalu camal fali bisakhati nafsihi, naftiisa wax ku adag ay u caro maxayday dusheeda ku adag ayuu ku qarjajaaxayaa oo yacni uu ku dhibayaa waxay naftiisa dhibsanayso. bacda an yardaa rabbuhu rabbigii markuu raali geliyo. marka bacda an yardaa rabbuhu saas wey dabdiga midda koobaad, soo hadda kitaabka noo shaqlay. marka wayacmal wuu camal falayaa bisakhati nafsihi, naftiisa waxyaabaha ku culus ayuu maxayda samaynaya oo ku xambaaraya. bacda an yardaa rabbuhu rabbigii markuu raali geliyo kadib. wayakuunu wuxuu ahaan fii jamiici alxaalaati xaaladihiisoo dhan dhexdeeda wuxuu ahaan maca sayidihi boqorkiisa maciisa waaye, fii amrihi wa nahyihi, yacni ilaahay amarkiisii wuxuu amray buu yacni ku dul soconoo macnaha uu samayn waayo, awaamirta ilaahay wuu qaadan, wanahyi wuxuu ka reebayna wuu ka haray weye. wayakuunu wuxuu ahaan waaye fii jamiici alxaalaati xaaladihiisoo idil maca sayidihi boqorkiisa maciisa, fii amrihi amarkiisa uu qaadanayo fartoomayo, wanahyihi wuxuu ka reeban uu ka harayo. waqaala cumar wuxuu yidhi radia allahu canhu allah ka raali noqdee, ina duriyata ashaytaani shaytaan owlaadiisa 9 wa zalyatuunun wa wathiinun wa laquusun wa acwaanun wa hafaafun wa muratu walmusawitu wa daasimun wa walhaanun. fa amaa zalyatuun midka zalyatuun la yidhaahdo fa huwa saaxibu laswaaqi midka suuqa dhex taagan waayo, midkaas suuqa yacni u xil saaran yahayoo fayansibu wuxuu taagaa fiihaa suuqa dhexdiisa waan gartay raayatahu bandiiradiisa iyo calankiisa ayaa maxayde wuxuu ka babanayaa suuqa. waa midka yacni beeca xaaraamta iyo dhaarta beenta ahoo maxayde qofka wuxuusan shayga kusoo gadin uu ku dhaarta iyo miisaanka in la fududeeyo waxyaabahaas midka dadka ku xambaaro. wa amaa wathiin midka la yidhaahda fa huwa asiga saaxibul musiibaati musiibooyinka, yacni qof walba oo musiibo ay ku dhacdo halkaa buu xil saaran yahayo qofka inuu samri waayo, sabarkii uu ka tago oo aad u qayliyo oo waxuusan ilaahay subxaana watacaala raalli kahayn uu ku kaco markii maxayde musiibo ay ku dhacdo, midka dadka maxayde arrintaas yacni u qurxiyo. wa amaa acwaan fa huwa asiga saaxibu suldaani
madaxdu la socdaayo madaxda inay jawrka iyo balaayada ay sameeyaan oo dadka yacni maxay u kala xaqsoori waayaan midka ku dhiirigeliyo waa wa ama hafaafun hafaaf midka la yidhaahdo fa huwa saaxibu sharaabi midka yacni mashruucaadka waxyaabaha muxaramaadka ah sida khamrada oo kale iyo waxyaabaha maxay ahayday ilaahay subxaanahu watacaala uusan raalliga ka hayn ee ilaahay dadka u ka reebay midka dadka u qurxiyo weeyo wa amaa muratu mura fa huwa asiga saaxibu lmazaamiiri gurbaanada iyo muusikada iyo waxyaabahaas midka dadka u qurxiyo wey wa amaa laquusun laquus fa huwa asiga saaxibulmajuusi kuwa dabka caabudo halkaasu ku shaqo leeyahayo kuwaasaa camalkaas xunka ay ku jiraan midka u qurxinaya wey wa amaa musawid midka la yidhaahdo fa huwa asiga saaxibul akhbaari khabarada saaxiibkeed wey yulqiiha wuu tuuri fii afwaahi nnaasi dadka afafkooda wuxuu ku tuuri waan garta waxbuu ku tuuri qofkii meeshaanu iska fadhiyaa waxunbaa maxay afkiisa kusoo dhacay wax alla wuxuu kusoo dhaca wuu iska sheegi run iyo been waxay noqonayaan haada midkaas saas ahoo dadka afkooda ku tuurayo oo beenta iyo balaayada ku xambaarayo waxaa weeyaan musawid midka la yidhaahdo wey walaa yajiduuna heli maayaan lahaa warkii asiga ah oo yacni hadda uu sheegayay aslan asal uma helay warka hadda aad sheegayso xageed ka keenta haddii la yidhaha asiga maba dhaafsanaba shaydaan baa afka ugu soo riday markiiba afkiibuu sii daayay haddii la yidhaahdo bal warkan yacni xaqiiqa u keen oo xageed ka keentayna meel uu u raaca ma yaqaan asiga ma dhaafsano wa ama daasimu daasim midka la yidhaahdo fa huwa asiga saaxibulbuyuuti midka guryaha jooga wey idaa dakhala arajulu rajulka markuu gurigiisa soo galo ama ninka gurigiisa uu soo galo waan gartay almanzila manzilka waan gartay idaa goortii dakhala rajulu rajulka iyo ninka uu soo galo haweenaydina waa la mide almanzila guriga ay soo gasho walam yusallim una salaamin waan gartay walam yadkur isma allaahi ilaahay dikrigiisana uu xusin tacaalaa sarreeye awqaca wuxuu tuuraa fii maa baynahum asigii kor ka yimid iyo dadkii guriga horey ugu sugnaa waan gartay dhexdooda ayaa maxay wuxuu kiciyaa almunaasacata yacni muran iyo dood xataa yaqaca dalaaqu ilaa furniin uu ka dhaco meeshii gurigiiba waxa uu kusii diyaarsan yahay haddii guriga qofka dikriga ilaahay iyo salaan uunu kusoo gelin markiiba waxaa weye asiga iyo ehelkiibu maxay ahayday muran buu ka dhex abuuraya ilaa uu dalaaq ka dhaco walkhalcu yacni khalci uu ka dhaco waan gartay asigana waa waxaa weye waa mid ka mid ah waxyaabaha lagu furniinka keeno wadarbu qarac wa amaa walhaan midka la yidhaahdo fa huwa asiga waan gartay yuwaswisu wuxuu waswaasiyaa fil wuduu'i weysada iyo wasalaati salaada iyo walcibaadaati midka waxaa weeye markuu qofka weysaysanayuu iyo baalkigi maxay ahayday waswaasiyaa salaada dhexdeeda midka dadku waswaasiya cibaadooyinka markii lagu jiro midka waswaasiya waa halkaas u xilsaaran yahay asiga waqaala cuthmaan wuxuu yidhi radia allaahu canhu allah ka raali noqonaya man xafida salawaati alkhamsi salaadaha shanta ah qofkii xifdiya liwaqtihaa waqtigooda ku xifdiya wadaawamahaa ku daa'imo calayhaa dusheeda yacni waxayda awqaadoodii ku ilaaliya salaadaha akramahu llaahu ilaahay wuu karaameeyaa bitisci karaamaatin 9 karaamo ayuu ilaahay subxaanahu watacaala uu ku karaameeyaa qofkaas asiga qofka salaada ilaahay xifdiyo ee waqtiga ay leedahayna ku xifdiyo 9 waxyaabood ayuu ilaahay ku karaameeyaa 9 karaamo siiya awaluhaa midda koobaad 9kaas midda koobaad yuxibuhu allaahu ilaahay ayaa jeclaanay wayakuunu wuxuu ahaan
badanuhu badankiisana saxiixan mid caafimaad qab miran ayuu noqon badankiisana ilaahay caafimaad ayuu u daa'imi wayaxrusuhu wataxrusuhu waxaa ilaalinaysa almalaa'ikatu malaa'igta ayaa ilaalinaysa oo xumaan oo dhan bay maaragtay waxyaabaha soo wajahaya dhibaataynaya ayay ka ilaalinayaan watanzilu albarakatu baraka ayaa soo degi fii daarihi gurigiisa wayadharu waxaa muuqan calaa wajhihi wejigiisa waxaa ka muuqan siima asaalixiina kuwa yacni saalixiinta ahee susuuban calaamadooda ayaa wejigiisa ka muuqanaysa wayaliinu allaahu qalbahu qalbigiisa ayuu ilaahay jilcin dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay iyo wanaagga dhegaysigiisa ayuu ilaahay qalbigiisa u jilcin wayamuru wuu mari cala asiraadi siraadka dushiisa kalbarqi laamici yacni hillaaci yacni birqayay oo kale sidiisoo kaleu ku maraya jidkaas siraadka waan gartay wayunajiihi allaahu ilaahay wuxuu ka badbaadin min annaari naarta ayuu ka badbaadin wayunzilhu ilaahay wayunziluhu ilaahay wuxuu dejinayaa allaahu ilaahay fii jiwaari aladiina kuwii deriskooda ayuu ka dhigayaa laa khawfun cabsi calayhim dushooda uusan ahaanin walaa hum ayagana yaxzanuuna aan murgaynin kuwaas deriskooda ayuu aakhare ilaahay ka dhigi darajadooda ayuu gaarsiinaya وعن علي رضي الله عنه علي waxaa laga wariyey allah ka raali noqdee albukaau oohin calaa halaathati awjuhin saddex qaab dusheeda ayay ahaatay saddex qaab dushooda ayay ahaatay awaluhaa midda koobaad min khawfi cadaabi illaahi tacaala ilaahay cadaabkiisa cabsi yacni laga cabsanayo way ku timaadaa waathaani midda labaadna min rahbati sakhadi caro ka cabsashadeedana way ku timaadaa waathaalithu midda saddexaad min khashyati alqatiicati goyn ka cabsashadeeday ku timaadaa wa ama aluulaa midda koobaad fa huwa kafaaratun waa dhaafid lidunuubi dunuubta ayaa lagu dhaafaa wa ama athaani midda labaadna waan gartay fa huwa dahaaratun lilcuyuubi ceebaha ayaa lagu dahiriyaa wa ama athaalithu midda saddexaad fa huwa alwilaayatu welinimowa maca rida almaxbuubi axadka la jecel yahay raalligelintiisa maceeda ahaatay fa thamaratu kafaarati dunuubi dunuubta oo la dhaafo miraheeda annajaatu min alcuquubaati cuqubooyin oo laga badbaado wa thamaratu tahaarati alcuyuubi ceebaha oo la dahiriyo miraha ka soo noqonaya maxay ahayd uu ka guranaya qofkan waxaa weeye annaciimu almuqiimu nicmo joogto ah oonan baaba-aynin waddarajaatu alculyaa iyo darajooyin sarsareeya wa thamaratu alwilaayati welinimada miraheeda maca rida almaxbuubi allaha la jecel yahay raalligelintiisa maceeda ahaatay waan gartay xusnulbishaarati bishaaro wanaag wey min allaahi tacaala ilaahay xaggiisa ka ahaatay biridaa raalligelin yacni maxay ahayde inuu kaa raali noqdo la rajeeyo wa biru'yati aragtidiisa la rajeeyo waan gartay wa ziyaarati almalaa'ikati iyo malaa'igta ziyaaradeeda la rajeeyo iyo wa ziyaadati alfadiilati fadliga oo ziyaado oo la rajeeyo والله سبحانه وتعالى أعلم هذا ولي التوفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته